asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba ku soo dhowaada sheeko ka mid a sheeko libaaxyadii aan halkan idinkala socodsiin jiray. sheekada ciwaankeedu markan waxa weeyaan labadii hameen ee libaaxu seexiyey magaalada. marka hore kanaalkan haddii aad ku cusub tahay sabskaraab noo saar oy tahay markii kugu horreysay uu soo gaadhay, haddii kalena laygta iyo sheerta sii saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horreeye muuqaalka la soo geliyaa uu soo gaadho. dhammaantiin waad mahadsantihiin, ku soo dhowaada sheekada. waxaa jirta xero libaaxyada lagu xanaaneeyo oo ku taalla bartamaha caasimadda Hargeysa oo aynu sheeko hore ku sheegnay oo la yidhaaha beerta libaaxyada Hargeysa. haddaba waxaa jirta laba habeen oo libaaxyada xerada ku jira cabsi ama argagax geliyeen dadweynaha ku nool caasimadda Hargeysa. labadan habeen ma aha laba habeen oo isku xogaga, laakiin waa laba habeen oo sannado kala duwan ku jira. habeenka koowaad waxay ahayd sanadkii 2008 kadib markii dadweynaha caasimaddu ka war heleen in xalay inan ama gabadh libaax ku cunay magaalada. warbaahintu ma ahayn sida imika ee warka islamarkaaba la helayo. warka waxaa laga sugi jiray sida idaacad, TV, jaraa'id oo ahaa beriga meelaha aadka loo akhrisan jiray oo jaraa'idku ahaa lambar 1. sidaa darteed dadku waxay si fiican uga ogaadeen habeenkii. aroortii xigtay dadku waxay dareemeen cabsi weyn. waxaa la kala hoyday habeenkaa xigay fiid ama maqrib, inkastoo aroortii dambe ay ka war heleen in libaaxi la dilay. sababtoo ay dadku la baqaya waxay ahayd in loo sheegay in libaaxi magaalada inan ku cunay amba qof, oo ay ka akhristeen wargeysyada warbixino argagax leh oo ku saabsan ka daranta libaaxina loo sheegay inuu magaalada ku jiro. inantaasina sidaa ayuu ku cunay, allah u naxariistee uu berigaa cunay. waxaa la sheegay inay ahaayeen wiil iyo gabadh wada socda oo maraya meel xilli habeena inuu inantii qaatay. libaaxuna uu ahaa ka beertan ku jira oo soo baxsaday. habeenkaasina waxay ahayd habeen ka mid a habeenadii ay magaalada Hargeysa uu argagax geliyey libaaxa beertan ku jira ee taariikhdana gashay. habeenka labaadna waxay ahayd habeenkii habeenada ugu cabsida badnaa ee uu beertan libaaxa ku jira argagax geliyey magaalada, kadib markii dadweynaha reer Hargeysa ka war heleen in libaaxii Calin Waraacadde waa libaaxa beertan ninka iska leh baxsaday oo gabadh la jaar ahayd si xun u dhaawacay, madaxana fujiyey, isagiina aan lahayn. kelmadaha ugu cabsida badan ayaa ahaa libaaxii ayaa wax cunay haddana wuu baxsaday. kelmadaha ay meelaha ka arkayeen ayaa ahaa dadku kuwa, maadaama markan la joogay xilli warisgaadhsiintu casri ahayd, ayaa markiiba waxa baraha bulshada lagu faafiyey muuqaalo badan oo aan run ahayn oo odhanaya libaaxii Hargeysa ayuu dhex marayaa iyo barobagaado kale oo fara badan iyo waa ka halkaa maray iyo wixii la mid ah. dadku muuqaalo feyga oo ay meelo kale ka keeneen ayay soo dhigayeen warbaahinta iyagoo ku sheegaya inuu magaalada Hargeysa harimana libaax dhex lugaynayo. dadweynahana cabsi ayay gelisay. dowladda iyo maamulkii beerta ayaa dadka ku wargeliyey inay ka feejignaadaan libaaxii oo baxsada oo dhaawaca. dadka waxaa looga digay inay socodka yareeyaan ama ayna soo bixin. kadib ayaa magaaladii gaar ahaan dhammaan aagii ka dhawaa beerta libaaxyada ee Hargeysa ilaa aroortii ayay dadku guryaha ku jireen oo ay warbaahinta kala socdeen baadidoonka libaaxa amba boqorka kaynta halka uu marayo oo markii dambe lagu wargeliyey inuu ku jiro meel xidh jiqa oo wada garanwa ah oo aan ka fogeyn xerada libaaxyada. ciidanka booliiska Somaliland ee sida gaarka u tababaran layidhaa RRU-da ayaa subaxnimadii ku guuleystay inay dilaan bahalkii aarka ahaa ee xalay gabadha madaxa fujiyey. dadweynaha Hargeysana waxaa ka foqday cabsidii ayaa ka foqday kadib markay warbaahinta ka arkeen in libaaxii la dilay. waxay ku soo noqotay noloshoodu sidii caadiga ahayd, gaar ahaan xaafadaha ka agdhow oo iyagu inta badanba cidiisa iyo hanjabaadiisu ay wadnaha goysay. kadib markii uu dhowr jeer libaaxani baxsaday, dadweynahana uu cabsi ku riday, ayaa mar kastaba waxay dhegtoodu taagan tahay in libaaxu baxsan karo oo uu kuna soo baxsan karo oo uu waxyeelayn karo. libaaxan ayaa waxa uu ku jiraa xero magaalada Hargeysa, xaafado badanna ay ku teedsan yihiin. kolkol ayuu hanjabaad bilaabaa iyo uu dhulka kaga gariiriyo iyagoo xaafaduhu cabsi dareema. haddaba labada habeenna waxay ahaayeen laba habeen oo libaaxa xeradan ku jira magaalada Hargeysa fiis seexiyey cabsi darteed oo taariikhda galay, iyagoo labada habeenba uu dad waxyeeleeyey, marna uu gabadh cunay marna uu gabadh dhaawacay. sheekadeennu intaa ay ku eg tahay. dhammaantiin waad mahadsantihiin. kanalkan mar kale haddii aad ugu cusub tahay waxaanu ku leenahay sabskaraab saar oo noqo qofka ugu horreeya sheekooyinka ama muuqaalada soo geliya uu soo gaadho.